السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxa aan rabaa inaan wax ka iraahdo mar labaad ayaan horaan ka soo hadlay dadka Soomaaliyeed ee Mareykanku ku haysto inay lacagii caruurta dhaceen loogu talagalay coronavirus-ka markuu jiray. Marka haddeer waxa weeye waxaanu ka hadlaynaa oo kale waxaa soo baxay waa tii aan hore u sheegay wadaadaha ku jira ayaa la lahaa laakiin ma ay soo shaac bixin. laakiin haddeer waxaa soo shaac baxay wadaadkii ugu horreeyay ee ku jiray dadka lacagaha wax ka qaatay ama loo haysto lacagaha Mareykanka caruuraha uu ugu talagalay. I don't know suu u qaatay balse lacago isdaba mariyays ah ayaa wadaadka lagu haystaana waa la leeyahay. I respect wadaadka aad baan u qiimeynaya, culimada waan qiimeeyaa, waan qadariyaa. culimadu waa culimadeeni, waa ducaadeeni, waa dadka aan wanaaga ka raacano. wadaadkan waxaan u ahaa follow, waxaan ka dhageysan jiray wax badan oo cilmi ah oo ka faa'iiday. wadaad fiican buu ahaa. wadaadkan waxaa la yiri waa Yemeni, waxaa dhalay Soomaali, kulli waa iska Soomaali oo waxaanu dhalnay waa Soomaali. waxaa la yiraahdaa magaciisa Sheekh Axmed Yemeni. marka sheekhan oo runtii lagu soo eedeeyay lacago, dadna waxay leeyihiin lacagihii cunada ayuu wax ka qaatay, dadna waxay leeyihiin maya maadaama lacagahaas ay soo baxeen, lacagaha cunada caruurta loogu talagalay ay soo baxeen, waxaa lagu sameeyay dadka Mareykanka jooga oo dhan oo Soomaalida ah dabagal. welina wuu socdaa, fari kama qodna faanoole ma maqli jirteen. marka welina wuu socdaa dabagalkii. ilaahu dadkan cadaanka ahna dabagelin. dadkan cadaanka ah hadday ku dabagalaan khatarteeda ayay leedahay. ma haraan ilaa wax ay salka tagaan, salka soo taabtaan. qofka bili-aadanka hadday dabagalaan waa bes. marka dadka marka qaar waxay leeyihiin maadaama uu masjid hayay oo imaam masjid uu ahaa, masjidkaas waxaa loogu talagalay sanadkii 18,000. dabcan masaajida waxaa dhaqaalo siiya dowladaha ay la joogaan, dowladda Mareykanka ama Yurub. meel kastoo masjid ku yaalo waxaa dhaqaalaha bixiya waxaa weeye qayb ka mid ah waxaa baxsha dowladda. marka waxaa la yidhi qaybtii dowladda ugu tala gashay ma ahane zaayid ayaa soo galay. marka waxaa la yiri wadaadka waxaa soo galay wadaa soo gashay, fartaa lagu goday, waxaa la yiri hala soo qabto. dabcan sida la sheegayo dad badanna ay soo dhigeen qof isagii u eg oo la jeebeynayo. dadka qaarna ay soo dhigeen qof maxkamad ay sheegayeen inuu fadhiyo oo ka hadlay. anigu ma daawan, laakiinse waxaan ka dhiibanayaa ra'yigayga. waxa weeye runtii anigu malihi wadaadka runtii wax xaday ama wax dhacay. waxaa laga yaabaa si khaldan inay wadaadka wax ku soo galeen, waayo waa wadaadada iyo culimadu waa dadka wanaagga lagu tuhmaayo, waa dadka maxaan ku yiraahdaa aanu wanaagga iyo wax walba ka dhageysano iyo xaqa. marka diinta islaamkana dadkii runtii qofkii bartay weeye oo mas-uuliyad buu hayaa oo uu hayaa dadka aan diinta fahmaynin, dadka wax magaratada ah. marka runtii waxbuu dhacay aniga ma dhihi karo, sababtaa diin celisa ay qofku hadduu mar leeyahay waxa weeye waxbuu dhacay lama dhihi karo. dabcan laakiin si khaldan inay wax ku soo galeen wadaadka waa laga yaabaa, maadaama la isbaarayeyna in uu raadki soo galay. oo Soomaalida aad baa loo baarayaa haddeer, aad baa loogu daba jiraa, aad baa maxaan ku irahdaa loo daba socdaa Soomaalida haddeer. dadkii buufiska qabay oo kale waa lay daba socdaa.
hadday dhab tahay oo la daba socdaa dadkii Soomaaliyeed. marka runtii aad iyo aad baan uga xumahay, wadaadka waa la xiray baa la leeyahay. runtii wax saa u badanna ma ahan baa la yiri waxa lagu haysto. marka ilaahay ka soo sii daayaan leeyahay, ilaahay ka badbaadiyo, ilaahay intii islaam ah baa ka badbaadiyo iyo ummadda Soomaaliyeedba. marka Soomaaliyay waxaan idin leeyahay oo aan rabaa inaan idinku iraahdo, dadkan aad u timaadeen doqmo ma aha, dadkan aad u timaadeen dabaalo ma aha, dadkan aad u timaadeen waxa weeye dad horu maray, dad wax bartay, dad sharciyo degsaday, dad xadaarad leh. marka dadka ha u malaynina xayawaano la iska dardari karo, la iska wixii doono lagu samayn karo, ha moodina. marka dadkan waxa weeye ciday daba galaana kama haraan ilaa ay taxadka soo taabtaan. marka waxa weeye Soomaaliyay iska jira waxyaabaha aad samaynaysaan, iska ilaasha, iska jira, aad isaga jira dambiyada markaad joogtaan weliba dhulalkan westernka ah iyo meel kastaba. dambi runtii ma fiicna, dambi ma fiicna, laakiin dad soo jeeda haddaad dambi ka gashid waxa weeye adaa istoogtay dee. dadkan waa dad soo jeeda, dad hurdo ma aha, dad idinku maqan weeye. doqmaha moodina haddaad wax yaryara ka xadxadaan waa iska kiindaynayaan, waa idin seeta dheeraynayaan, ma garateen? waa la idin seeta dheeraynaya maadaama aad ka timaadeen gaajo, waddan burbursan, waddan dhibaataysan, bili-aadanima mararka qaarkood la idin daynaya. laakiin maalintay ku qabtaan khatarteeday leedahay. cid kaa furfuraysa ma jirto, cid idinka furfuraysaa ma jirto. waa siday idin dabagaleen, waa siday idin qabsadeen, waa siday idin dabagaleen, cid idinka reebaysa ma jirto. mar walbana waxaa idinku soconaya in ay idin jagirayaan, mar kasta idin ogaadaan waxa aad ku dhex jirtaan, waxaad samaynaysaan. dad lala socdaa tihiin sideedaba. Soomaaliyay ha moodina inaydan la idinla socon, ha moodina in aan la idinla socon, ha moodina. Soomaaliyay waa la idinla socdaa, waa la ogyahay waxaad ku jirtaan, waa la ogyahay waxaad samaynaysaan. waa idin sheegay dadkan waa dad soo jeeda. ha moodina sida Africa jiifsatay yaa iyo wadamada carabaha oo jiifa, ha moodina, iyo wadanka Soomaaliya oo laga jiifo, ha moodina. dadkan dhulkooda way ilaashanayaan, dadkan sharciyadooda way ilaashanayaan. dadkan runta cadaanka waa dad aad u baqdin badan, cid walba ka shakiya, cid walba ka baqa. awoodda ay leeyihiin ilaahba awood lehe ay sheeganayaan marka laga soo tago iyo hubabkaas iyo waa dad baqa weeye, dad u baqa dhulkooda, dad dhulkooda jecel, dad dhulkooda ilaashanaya weeye. marka daqdaq iyo orodkii Soomaaliya iyo dabeecadihii Soomaaliya iyo waalidii iyo aan dhulkeena kusoo burburinay yaanan ula iman. waad ku jabaysan taas, waanad ku halaagmaysan, waanad ku ceeboobaysaan, waadna ceebaynaysaan. dad islaam ah oo tuugo ah oo tuugo loo haysto waa ceeb. dad diin leh, diinteena sidaan u fidin karnaa? marka diinteena dadkaan ka shaki gelinaynaa marka. sababtoo ah qofkii diinta lahaa oo diinta saxda ah lahaa oo maxaan ku iraahdaa rabay inuu diinta fidiyo oo rabay inuu dadkan diinta gaarsiiyo yaa message ka wadi. ilaa qofka muslimka ah waa messenger oo kala wey. nabigii hadduu dhintay yaa qaaday in maxaan ku iraahdaa diinta la fidiyo? waa dadka islaamka ah inay fidiyaan, inay wanaagga dadka gaarsiiyaan. marka haddii inagii aanu noqono tuugo wax xadaysa, tuugo wax dhacaysa, dad isdilaaya, dad akhlaaq xun, dad waxay doonaan sameeya, dad maxaa kusi samaynaya, dad wax alloo xun, wax kastoo xun yaa dad wax qarxinaya haddaan noqono, waxa weye wax kastoo xun haddaanu maxaan ku rahdaa ku magacawnaano,
ma wanaagsana waa laga wanaagsan yahay ma fiicna runtii soomaaliya stop waxaad ku jirtaan kuma guuleysanaysaan waad ku halaagmaysaan waa la idin eryaya wadankana waa la idinka saaraya meeqa ayaa jirta wadan oo laga ceshay dad dhalashooyin la siiyey satiisan la siiyey oo la ceshaa jira aanu ognahay marka soomaaliya calm down isdajiya waxaa samaynaysaan joojiya xooggiina iyo xalaashiina shaqaysta dhul opportunity land ayaa joogtaan aad shaqaysan kartaan oo nolosha aad ka samayn kartaan ma ahana tuugo iyo xatooyo iyo khiyaano iyo isdamamaryeys iyo inaad dadka saa u laaqdaan ma wanaagsana waa laga fiican yahay khaaf rabkum ilaahay ka baqa hana ceebaynina islaamka ha ceebaynina soomaalida ha ceebaynina magaca ha nooga dheelina intaasaan idin leeyahay ilaahayna ha idin soo hadeeyo ilaahay dad wanaagsan ha naga dhigo dad xun ma nihin kulligeen laakiin dad xun waa naga buuxaan waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu